لا تسير الأمور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا على حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. waa kulan muqdisho maanta ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka toddobada jufo uu ka kooban yahay beesha shiiqaal gandarshe kuwa oo si cad u sheegay inay weli daba taagan yihiin kursiga sumadiisu ay tahay hoob eber 45 oo guddiga xalinta khilaafaadka ay joojiyeen natiijadii ka soo baxday kursigaasi. odayaasha dhaqanka iyo haweenka beesha shiiqaal gandarshe ayaa si cad u sheegay inay weli aysan ka tanaasulin kursigoodii ayna cadaalad ka sugayaan madaxda ugu sareysa dalka sida ra'iisul wasaare Roble iyo waliba guddiga xalinta khilaafaadka oo maalinta Sabtida go'aan rasmi ah ka soo saari doono kursigaasi. haddaba waa kuwan iyagoo eedan u jeediyay madaxweyne Cabdicasiis Laftigaran guddiga xalinta khilaafaadkana ay amaan u jeediyeen madaxda qarankana ka codsadeen in cadaaladda loo falo in kursigooda dib loogu soo celiyo. labaa inaan aga mahad celiyo guddiga khilaafaadka dacwadeyna haddaan beelweynta shiiqaal gandarshe dacwadii aan gudbisanay guddiga oo naga qaabilay noo qaaday waa aga mahad celinaynaa maaragtay insha allahu tacaala waxaana ka sugaynaa in maaragtay kursigeeni ay wax ka qabtaan ay noo soo celiyaan rajadaasaan insha allahu leenahay waana ka sugaynaa kasta hadda ay naga qabteenna waa aga mahad celinaynaa. midda kale madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran asna waxaan leenahay mudane madaxweynuhu kursiga beelweynta shiiqaal gandarshe way ka quursan laadahay kursiga annaga xaq u leh kursigeena weeye ninka hadda ku fadhiya kursiga ma laha waxna kuma sheegan karo. shiiqaal gandarshe weli waxay daba taagan tahay ay daba socotaa cadkeedii yaraa oo kursiga ahaa hadduu sanbad yaataa weli kama aysan harin. mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare mas-uuliyadda dalkan labadiina hoggaan u maanta ilaahay wax buu idinka weydiinayaa cadaalad falka iyo joorka falkaba kursigaasi dulmiyuu ku maqan yahay ilaa ay hadda. mudane ra'iisul wasaare insha allahu tacaala hadda mas-uuliyadda doorashooyinka adigaa ka mas-uul ahaa waxaan ku leeyahay aan kaala dardaarmayaa haddii ilaahay yidhaahdo xuquuqda beesha gandarshe hadda miday daba taagan tahay waa adigana cadaaladan kugu kasaaya aniga my person